hogaamiyaha isbedel doonka magaalada Wajaale Maxamed Cabdilaahi Qombar iyo qaar ka mid ah bulshada magaaladaasi ayaa cabasho ka muujiyay maamulka degmada Tog Wajaale waxayna sheegeen inay ku kaceen falal musuqmaasuq isla markaasina ay musuqmaasuqeen hantidii arrimaha bulshada wax lagaga qaban lahaa sidoo kale waxay xuseen dantii guud ay ibsadeen maamulka degmada Tog Wajaale waxayna sheegeen inay isticmaaleen dana shakhsi sida ku cad nidaamka dawladaha hoose dawlad hoose oo kasta oo wadanka ka jirta ama deriskeena ha ahaato ama Soomaaliland ba ahaatee waxay leedahay qorshayaal iyo yool ay ka duulaan dawladda hoose ee Wajaale malaha khibrad iyo qorshayaal ay ka duulaan iyo strategical planning sidii loo heli lahaa Wajaale casriya Wajaale jidadle Wajaale la jaan qaada magaalooyinka waaweyn miisaaniyad la soo dejiyo oo ummadda loo soo bandhigo oo la jijibiyaa ma jirto xafiisyo dawladeed wadiga xafiiskii dawladda hoose oo arkaysa gurguurad bad ku galaysaa markaad galayso oo xafiisyo oo sida aad aragtay sanadada u sokaysa daahir yaala xilligii daahir yaala marka waxaan leenahay war dadka ha loo tudo hantidooda lagu soo celiyo jeeb in la gashado ma aha waa in ummadda wax lagu soo celiyo arrakaawa magaalada la dhigto maalin walba waxay isku sawiraan maamulka magaalada Wajaale carrada ay dadku dhigtaan ee ay 20 kalowda isku tarsadaan ay bakhaarradooda ama wadooyinka xaafadaha ay dhigtaan ayay yiraahdaan anaga qabanay waa horumarkii magaalada adeer wax qabad bal idin ka fadhiya in la idin xisaabtamo weeyaan waxa loo baahan yahay in ordo yimaado laga bilaabo maalintii Muuse bixi qabsaday waxa looga baahan yahay dawladda hoose ee Tog Wajaale xisaab celin cad waxa ragaadiyay musuqmaasuq kaabayaashii dhaqaalaha isla xisaabtan ma jiro maamul xumo ragaadisay habsami u socodka hawlihii qaranka iyo horumarinta ee magaalada Tog Wajaale ku suntanayd inay wax qabato ganacsataduna roolkeega ayay ka qaadan jirtay oo qaaraanka way ku dari jirtay kadib markii khilaaf weyn yimid isla markaana ay ku shaqeyn waayeen rabitaankii bulshada reer Wajaale gudidii dib ay uga joogsatay inta gudidii ka joogsatayna wax alla wax magaaladii laga qabtay ma jirto inta wax qaban jirtay dhaqaalaha soo ururinaysana gudidii horumarinta Wajaale markii aanu xiriir la sameynay la sheekaysanay waxa ay sheegeen ilaa isbedel yimaado oo cid cusub oo dadka iyo dalka wadanaynaysa ay timaado marka kuwa la helo ma aanu shaqeyn karno marka xukuumadda waxaan leenahay gurmad loo galo dadkii reer Wajaale halis bi ku sugan yihiin xaaladoodu ma wanaagsana wax qabad ma jiro magaaladii waa la arkayaa boqola faris magaalada xafiiskii dawladda hoose hortiisii ay biyo jiifaan oo uray kawaankii wada ogtihiin sidoo yahay sariimadii wada ogtihiin maalinta waxaan ku yiri wax la soo hadal qaada ama la dhaliilay yiraahdaan nimankaas waxbaan u qabananaa xukuumadda Soomaaliland waxaan baaq dheer u soo jeedinanaa in nimanka maamulka Wajaale ay gabeen shaqadoodii mas'uuliyiin xilkoogii gabay ay yihiin 3 nin oo aan haba yaraatee ummadda waxba u qaban oo u shaqeeyay waxaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha u soo jeedinanaa cod dheerna ugu diranaa in master plan-kii magaalada Wajaale loogu talagalay in lagu hormariyo waxaan madaxweynaha u soo jeedinanaa iyo wasiirka arrimaha gudaha in magaaladii Wajaale dayacan tahay master plan-kii la fuliyay ayaa waxa dhacday in dib ay dawladda hoose u iibsatay oo wadooyinkii dib u xidhay halkii aanu ka filaneen hawlaha guudna ay shaqadoodii qabtaan oo carrakaaweynta ay dhigaan magaalada ay magaalo strategical planning la ay noqoto halkan waxa ka cadeynaya maanta runta waxana ay dadka bixiyay danta guud ee beeraha laga jaray dantii guud ee laga jaray beeraha waxa loo isticmaalay shakhsiyaad baa isticmaalay xogayaha iyo waxa isticmaalay gudoomiye ku-xigeenka marka waxaan leeyahay dawladii dhexe iska daaxinta hawlihii guud ee dawladda dhexe soo dirtay madaxweyne Muuse bixi soo diray wadooyinkii bixiyay waa la iibiyay maamulka Wajaale laga soo gaaray degmada Tog Wajaale sida ugu dhaqsaha badan leh ganacsiyada magaalo
loo baahan yahay in bilicdeeda kor loo qaado oo magaalo loo baahan yahay in si fiican looga shaqeeyo ganacsato badan baa timaado meel kasta adduunka ka mid ah marka maamulka magaalada Wajaale waxaad moodaa inay ka seexdeen nabadgii ama xuduudkii waa halkii iskaga soo talaabay halkii indhaha magaalada soo mariyeen waxa loo baahan yahay in wax laga qabto wadalka saamee qashin baa meel kasta iska turin waxaa jirta in dawladda soo waxay leedahay hal iska rugo oo ka shaqeysa qashka maalin walba rag naga quwad weynayntu yimaad de nagu caqeynaya muusabixi horta waa salaamaya xashka horta Ilaahay ka aqbalo intii laga aqbalayna Allah ka dhigo dabadeed dayartii Wajaale way silixsantahay waxaan isku haynaa dadkii tijaarta ahaa bakhaarada lahaa iyo hawlihii guud baa nagu artamaya annagu waxaan u aragnaa Muuse inuu naga dharagsan yahay uu danyarta Wajaale soo jaleecayn xashka Ilaahay ka aqbalay bal danyarta Wajaale wafdi noo soo diro aragtidayada iyo hal la arko siday tahay Wajaale waana lagu tumanaya cadaaladna maaha maxay ahayd wadada intuu cagaf mariyo ayuuna lowd caraab ku shubay waxaan ku yiri magaalada Tog Wajaale caruurteedii maanta ma iidin waxay ku dhacday xorfadii qaar waa lagu aasay dawladda hoosana waxaan ku yiri waxaad moodaa siyaad barra anagu way naga daran tahay horta maanta maalintii siyaad barra anaga noo dhaantay dadkii siyaad barra joogayna waanahay anigu kamid baan waxa weeye maalintii siyaad barre kul misbaat uun baa la igu dilayay uun gurigayga lama goynay maanta maciishadii baa loogu yimid waana la qabataynaya ma guriga qaad hadii la yiraahdo riixaya waa ka dhaqaaqaya meesha waa la iga taadinaya aniga kaariyoonaaygiiba waa la ii barkiyo waa imika xanuun jiifa ka soo kacay qaarada lacagta ka qaateena sidii bay alaabtu hor rasaysantay anagoo masaakiin lama arki karay Mukhtaar Nuux Ibraahim Ariel TV gobolka Gabiley